بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Salaan kadib waxaan halkan ku faahfaahin doonaa aniga iyo wasiirka gaashaandhiguba dacdadii xalay ilaa maanta ka dhacday dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inuu xaqiijiyo inuu dalka ka dhacay xalay ilaa saakay isku day afgembi balse dhicisoobay. afgembigaas waxaa soo abaabulay oo hormuud ka ahaa madaxweynihii muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wuxuu ku weeraray ciidamo asiga ilaalo gaar u ah oo asiga si gaar ah uga amar qaatay ra'iisul wasaarihii xafiiskii iyo qayb ka mid ah ama qaar ka mid ah xafiisyada golaha wasiirada. nasiib wanaag kadib markii ay ka hor yimaadeen afgembigaas qaar ka mid ah ilaalada madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo qaybo kale oo ka mid ah ciidamada qaranka waa uu dhicisoobay. intii lagu soo qanciyay in badan oo ka midana dib ayay kaga laabteen afgembigii ay ku howlanaayeen. waxaa jira tiro aad u yar oo weli ku howlan arrimaha guraacan oo dhicisoobay oo garan la inuu waagu ku baryay oo ka mid ah ciidamadii uu soo abaabulay madaxweynihii muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan ugu baaqayaa ciidamada amniga inay difaacaan dowladnimada, inay difaacaan dimuqraadiyadda, ilaaliyaan hantida shacabka iyo badqabkooda. waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaa in tallaabo sharci ah laga qaadi doono shakhsiyaadkii ka dambeeyay afgembigaas dhicisoobay, hadday noqon lahaayeen xubno ka mid ah ciidamada iyo hadday noqon lahaayeen shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo aad loogu yaqaano falalka guraacan ee noocaas oo kale ah. weli waa uu socdaa howlgalladii ama ciidamada operationkii ay ciidamada amnigu ku difaacayeen dowladnimada iyo dimuqraadiyadda. waana socon doonaa waana guulaysan doonaa haddii alla idmo. waa mahadsantiin.